waxaan daawadayaal meel baad joogtaan kuna soo dhawaada wararku idin haya warbaahinta nuxurka wararka qodobadaad ku daawan doontaana waxaa ka mid noqon doona Soomaaliland oo ku dhawaaqday inay ka baxday heshiiskii saldhigga Berbera ee Imaaraadka Carabta waare oo ka hadlay qaraxii lagu dilay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle shacab guryahooda lagala baxay oo balad xaawal lagu gooracay al-shabaab oo war ka soo saartay qarax lagu dilay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle saraakiil ajaanib ah oo lagu dilay duqeyn ka dhacday degmada Jilib ee gobolka Shabeellaha Hoose sababta Yuusuf Gelle iyo xildhibaanada Ceelbur ula safteen musharax qorqor xidig oo dhaawac aqal yar la xiriiriyay hadal uu maalin ka horjeediyay Axmed Madoobe dagaal sababay khasaaro oo ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug dowladda federaalka Soomaaliya oo doonaysa in lacageyso xildhibaanada ahlu sunna cabsi darteeda wararka dibadda warbaahinta nuxurka wararkana waxaa ka mid ah Erdogan oo Mareykanka ka codsaday inuu sawaariikh ka iibiyo dalkiisa daawadayaal inta waxay ahaayeen qodobada ugu doorkoran warbaahinta nuxurka wararka markaana u diyaar garooba iyagii oo dhameystiran madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horeysay sida dabashaaca uga qaaday in xukuumaddiisu ay ka laabatay saldhiggii militari ee magaalada Berbera ka siisay dowladda Imaaraadka Carabta Muuse Biixi ayaa ku macneeyay talaabadan ay kaga laabteen heshiiska ay dowladda Imaaraadka Carabta saldhigga ku siiyeen mid wada tashi dheer kadib markii xukuumaddiisu ay ka yeelatay madaxweynaha Soomaaliland ayaa hadalkan ka sheegay xilli uu ku sugnaa garoonka magaalada Berbera isagoona ka dhawaajiyay in garoonka Berbera la dhisi doono oo ka mid noqon doono garoomada ugu waaweyn dunida garoonkii Berbera ee in badan lagu murmayay in Imaaraadka ay dhiseen ee la lahaa waa ciidan iyo ciidankani muxuu yahay ciidanka waanu ka wareejinay oo waa shibil maanta waxa uu noqonayaa habka ugu weyn ayuu yiri madaxweyne Muuse Biixi wuxuu intaasi ku sii daray horumarku waxa uu ka yimaadaa nabadda intaynu nabadda xoojino inqilaafka yareeno aan horumarka ka shaqeyno meel la isku khilaafsan yahay horumar lagama gaaro maamulka Berbera iyo odayaashiisaba waxaan ku bogaadinayaa in ay nabadda aad u xoojiyeen baryahan dambe waana tusaale wanaagsan hadalka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ee ku aadan ka noqoshada saldhiggii militari ayaa ku soo aadaya xilli uu muran baahsan ka taagnaa saldhigga xukuumadda kulmiye ee Berbera ka siisay dowladda Imaaraadka Carabta waatahay daawadayaal halkaad inagala socotaan warbaahinta nuxurka wararka madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa si kulul uga hadlay qarax miino oo lagu dilay mas'uuliyiin ka tirsan maamulkaasi kaas oo ka dhacay duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe Waare ayaa tacsi u diray ehelada ay ka dhinteen mas'uuliyiinta iyo askarta lagu dilay weerarkaasi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun anigoo ku hadlaya afka golayaasha dowladda Hirshabelle iyo kaygaba waxaan tiraanyada la qaybsanaynaa qoyskii eheladii guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed gaar ahaan reer Hirshabelle oo ay ka geeriyoodeen mas'uuliyiintaasi iyo ciidamada geesiyaasha ah ee iyaguna shahiida ayuu yiri madaxweyne Waare sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in labadan mas'uul ee samafalaha ah iyo askartii kale ay ku shahiida qaraxan waxa ay waqtigooda iyo naftooda u horeen soo celinta nabadgelyada dalkooda waxayna dadaal badan galiyeen sidii Hirshabelle ay u horumari lahayd qaraxan ayaa waxa sheegatay al-shabaab kaas oo lagu dilay gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdullaahi Shitaawe wasiirkii hore ganacsiga Hirshabelle Sabriye Cusmaan Xasan Baldoos oo samafale iyo saddex askari oo ilaalo u ahayd mas'uuliyiintaasi dhanka kalena war ka soo baxay al-shabaab ayaa looga hadlay qarax xoogan oo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle lagula eegtay deegaanka Gololey oo dhaca inta u dhaxaysa degmooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe al-shabaab ayaa sheegtay in qaraxaasi oo ahaa miino ay la eegatay gaari nooca raaxada ah oo ay la socdeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle afayeenka howlgallada al-shabaab Cabdicasiis Abo Muscab oo la hadlay warbaahinta al-shabaab ayaa sheegay in weerarkan uu ahaa mid qorsheysan oo lagu dilay mas'uuliyiintii bartilmaameedka ahaa una dhacay sidii la rabay sida uu hadalka u dhigay alla fadligii howlgalku waxa uu dhacay sidii loo qorsheeyay waxaana lagu dilay cadowgii bartilmaameedka ahaa ayuu yiri afayeenka ciidanka al-shabaab Abo Muscab ma shaacin afayeenku khasaaraha iyo magacyada mas'uuliyiinta lagu dilay qaraxaasi sida ay xogta ku heshay warbaahinta nuxurka wararka waxa qaraxaasi ku dhintay gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda ee gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdullaahi Shitaawe wasiirkii hore ee wasaaradda ganacsiga Hirshabelle Sabriye Cusmaan iyo nin lagu magacaabo Xasan Baldoos kaas oo ka shaqeynayay mid ka mid ah hay'adaha samafalka ee gobolkaasi al-shabaab ayaa inta badan weeraro jidgal ah iyo qaraxyo ka fulisa wadada dheer isku xirta magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe xaaladda magaalada Balad Xaawe ee gobolka Gado ayaa mid qasan kadib markii qaarna la dilay qaarna la gooracay dad guryahooda lagala baxay dadkan guryahooda lagala baxay ayaa ahaa 3 qof oo mid ka mid ah haweeney ahayda waxaana guryahooda ku weeraray dable hubeysana saddexdan qof ayaa qaarkood la gooracay halka qaarka kalena lagu dilay rasaas sida ay xaqiijiyeen dadweynaha ku nool magaalada Balad Xaawo dadka la dilay ayaa magacyadooda lagu kala sheegay
xabiibe cabdiraxmaan cali oo loo yaqaano xabiibladan oo ka mid ahayd ururada haweenka ee maamulka Jubbaland ee Balad Xaawo. 2 Xuseen Shariif Cabdulle oo Balad Xaawo ka ahaa gudoomiye waaxid. 3 Cabdi Cali Kaynaan oo ahaa madaxii waaxda maaliyadda ee Balad Xaawo. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkan xalay ka dhacay magaalada Balad Xaawo, waxa ayna sheegeen inay qayb ka tahay dagaalada ay kula jiraan dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada Amisom. Maamulka Jubbaland weli kama uusan hadlin falkan ka dhacay magaalada Balad Xaawo oo maamul ahaan hoostaga madaxweyne Axmed Madoobe. wararka ka imaanaya Jubbada Dhexe ayaa sheegaya in duqeyd dhanka cirka ah laga fuliyay degmooyinka Jilib iyo Bu'aale ee gobolkaasi. duqeymahan oo kuwa isxigay ayaa waxaa la sheegay in lala beegsaday xarumo ay ku sugnaayeen dagaalyahano iyo hogaamiyaal ka tirsan Al-Shabaab. duqeymahan oo kuwa isxigay ayaa waxaa la sheegay in lala beegsaday xarumo ay ku sugnaayeen dagaalyahano iyo hogaamiyaal ka tirsan Al-Shabaab. saraakiil ka tirsan sirdoonka Soomaaliya ayaa sheegay in duqeynta koowaad ay ka dhacday Jilib lala bartilmaameedsaday guri ay ku sugnaayeen saraakiil ajaanib ah oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab. sidoo kalena duqeynta labaad oo ka dhacday Bu'aale lala eegtay goobo kale oo ay ku sugnaayeen dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab. sida ay saraakiishu xaqiijiyeen waxaa duqeymahaasi lagu dilay ilaa 2 sargaal oo Kenyaan ahaa. dhanka kale waxaa duqeyno kala diyaarado dagaal ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta nuxurka wararka u sheegay in duqeyntaasi lala beegsaday xarumo lagu tababarayay xubno ka tirsan Al-Shabaab. macadilaa iyo hadda khasaaraha ka dhashay weerarkan welina ma jiro wax hadal oo ka soo baxay Al-Shabaab oo ku aadan duqeymahaasi. diyaar garowga doorashada madaxtinimada Galmudug ayaa socota iyadoo ilaa iyo hadda 2 musharax ay ku dhawaaqeen inay u taagan yihiin xilka madaxweynaha Galmudug ee 4 sano soo socoto. Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo Cabdiraxmaan Odowa ayaa ilaa iyo hadda isu soo taagay xilkaasi. labadan nin ayaa loo arkaa in mid uu yahay musharaxa mucaaradka midna uu haysto taageerada dowladda federaalka ee Soomaaliya. magaalooyinka Galgaduud qaarkood ayaa durbo u muuqda in ay musharax gaar ah taageersan yihiin. xildhibaanada labada aqal ee dowladda federaalka oo ku matala degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ayaa si buuxda u garab istaagay musharax Qorqor. warbaahinta nuxurka wararka ayaa la xiriirtay senator Yuusuf Geelle Ugaas oo 15 sano la soo dhaafay kamid ahaa xildhibaanada Jaangooya siyaasadda Soomaaliya kaas oo ka soo jeeda degmada Ceelbuur. waxaanu weydiinay waxa sababay in xildhibaanada Ceelbuur ay dhamaantood hal musharax isu soo taagaan, wuxuuna ka jawaabay waqti badan ayaa Galmudug galinay, waxaanu muddo dheer raadinaynay Galmudug isku filan. waad ogtiin 4 sano la soo dhaafay sida uu xaalka ahaa. ma jira hal magaalo oo adeeg bulsho heshay iyo hal magaalo oo laga saaray Al-Shabaab. waxaasoo dhan waxaa sabab u ahaa in la waayay garab istaagii dowladda dhexe maadaama uu khilaaf jiray. xaqiiqdii arrintaasi walaac badan ayay ugu abuurtay ayuu yiri senator Yuusuf Geelle. waa la socotaa awoodda Al-Shabaab ay ku leeyihiin Dhuusamareeb ilaa iyo Ceelbuur ilaa iyo Galhareeri ilaa iyo Ceeldheer. dadkaas muddo ma aynan arag wax nidaam dowlad ah. waxaa adkaatay in xitaa gargaar la gaarsiiyo. waxaanu dhowr jeer dowladda federaalka Soomaaliya kala hadalnay in dhulkaasi laga xoreeyo Al-Shabaab wayna naga aqbashay. waxaa la sugayaa doorashada madaxweynaha Galmudug. sidoo kale waad aragtaa dib u heshiisiinta ka socota Galmudug, rajada laga qabo dhismaha dekada Hobyo iyo ciidamada la isku dhafay oo mushaarka loo bilaabay. si adeegyadaasi loo sii xoojiyo kuwa cusubna loo bilaabo, waxa ay noo muuqataa inaysan Galmudug qaadan karin in mar kale gacanta loo geliyo qof doonaya in uu ka dhigo furan siyaasadeed oo dowladda dhexe laga culaadiyo ama qof aan la aqoon biyo dhiciisa. haddii aan su'aashaad u soo laabto, xildhibaanada Ceelbuur ka soo jeeda waxa ay rabaan in dowladda Soomaaliya si wanaagsan loola shaqeeyo oo deegaankooda iyo dadkooda wax loo qabto. waxaynu nahay dad noolnimada jecel oo aan weligood ka shaqayn in qaranka la culaadiyo. sidaas darteeda ayaynu go'aansanay inaan si buuxda u garab istaagno musharax ay ka go'an tahay in dowladda dhexe uu la shaqeeyo una xoreeyo dhulka ka maqan, ayuu hadalkiisa ku daray senator Yuusuf Geelle Ugaas. beelaha Mursada iyo Duduble ayaa 20 xildhibaan ku leh baarlamaanka Galmudug, waxayna u muuqataa in siyaasiyiintooda si buuxda ay u muujiyeen inay garab istaagsan yihiin musharax Qorqor, taasoo culayska ku badi doonto musharaxa mucaaradka Cabdiraxmaan Odowa. waa tahay daawadayaal halkaad inagala socotaan warbaahinta nuxurka wararka. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda gaar ahaan kuwa Danab oo ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. ila deegaanka ayaa sheegay in iskorimaadkan uu ahaa mid kooban oo ka qarxay agagaarka garoonka diyaaradaha Ugaas Nuur ee magaaladaasi. inta la xaqiijiyay waxaa rasaaseyntaasi ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya. sidoo kale wararka ayaa intaa ku daraya in dagaalkani uu yimid kadib markii muran uu ka dhashay waxyaabaha maanka dooriyo oo isticmaalayeen askar ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya. xaaladda ayaa hadda kacsan, waxaana lagu soo waramayaa in goobta ay gaareen saraakiil ka tirsan kuwa xooga dalka oo ku baxay xiisadaasi si ay u xaliyaan. weli ma jiro wax hadal oo ka soo baxay saraakiisha hogaaminaysa ciidamada dowladda ee dhawaan la geeyay
magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ma ahana markii ugu horreysay oo ay wada dagaalamaan ciidamo ka wada tirsan dowladda waxaana horey magaaladaasi isugu fara saaray ciidamo ka kala tirsan nabad sugidda iyo booliiska Soomaaliya xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo sheegtay inuu yahay madaxweynaha Jubbaland ayaa ka hadlay dhaawacii Kismaayo lagu geystay Axmed Jaamac Qalyar oo ahaa gudoomiyihii golaha badbaadada isbeddeldoonka Jubbaland ugu horreyn hadal qoraal uu soo saaray ayuu ku bilaabay ilaah ayaan caafimaad degdeg ah uga baryeena Axmed Jaamac Qalyar oo ahaa gudoomiyihii golaha badbaadada isbeddeldoonka Jubbaland kaas oo xalay lagu toogtay magaalada Kismaayo dhaqaatiirta ayaana la tacaalaysa dhaawiciisa waxaan ilaahay uga baryeena in xaaladiisu uu sahlo waa hubaal inuu xiriir toos ah ka dhaxeeyo qodbadii naflacaaliga ahayd uu jeediyay Axmed Madoobe iyo waliba toogashada loo geystay nabadoonkaasi golaha badbaadada isbeddeldoonka Jubbaland waxaan ka codsanayaa inay u soo duceeyaan Axmed Jaamac Qalyar sidoo kale golaha isbeddeldoonka Jubbaland waxaan ugu baaqayaa inay foojignaan dheeri ah ay galaan waa hubaal inuusan ruuxna maalintiisa dhaafeynina golaha isbeddeldoonka Jubbaland marnaba ma haki doonaan ujeedadooda iyo goolka isbeddeldoonka shacabka Jubbaland dowladda federaalka Soomaaliya beesha caalamka iyo ciidamada Amisom waxaan ugu baaqayaa inay gutaan mas'uuliyadda ka saaran ilaalinta shacabka iyo dadka mas'uuliyiinta ah ee indhaha u ah bulshada Soomaaliyeed dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qarka u saaran inay ka laabato heshiiska 30 xildhibaan ay ugu ballan qaaday kooxda Al-Sunna wal Jamaaca kadib walaac soo food saaraya warbaahinta nuxurka wararka ayaa heshay xog sheegaysa in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ka baqdin qabto saameynta 30 xildhibaan ee loo ballan qaaday Al-Sunna wal Jamaaca waxaana baqdinta ugu badan ay ka jirtaa halka ay codkooda ku biirin doonaan maadaama loolan adag ay wajahayso doorashada galmudug dowladda federaalka Soomaaliya ayaa doonaysa in Al-Sunna lacag ugu badasho 30 xildhibaan ay hore ugu ballan qaaday isla markaana dowladda ay kala wareegto soo xulista xildhibaanadaasi una dhiibto odayaasha ayada taageersana Al-Sunna ayaa markii horeba dalbatay in la siiyo 35 xildhibaan waxaana dalabkaasi si weyn uga soo horjeestay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyadoo markii dambe uu madaxweyne Farmaajo arrintan soo farageliyay qayrana faray in Al-Sunna la siiyo 30 xildhibaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa fuliyay amarka madaxweyne Farmaajo isagoo xilligaasi ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb balse hadda ayaa la sheegay in arrintu ay xumaatay oo xaalku isbedelay hoggaanka Al-Sunna oo dhankooda doonaya in saameyn siyaasadeed ay ku yeeshaan maamulka la dhisay ee galmudug ayaana wali arrinkan la hordhigina ra'iisul wasaare Khayre ayaa xoogga saaraya sidii musharaxa uu wato uga soo bixi lahaa doorashada galmudug waxaana loolan xoog leh kala kulmaya xildhibaanada mucaaradka ah iyo xisbiga uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inta badan xildhibaanada mucaaradka ah iyo xisbiga Xasan Sheekh ayaa taageeraya musharax Cabdiraxmaan Odowa oo ka shacbiyad badan musharaxa ay wadato xukuumadda nabad iyo nolol dowladda ayaa hadda ka cabsi qabta in Al-Sunna ay heshiis la gasho mucaaradka kadibna ay soo xulaan madaxweyne aan ahayn kan ay wadato kooxda nabad iyo nolol waa tahay daawadayaal halka aad nagala socotaan warbaahinta nuxurka wararka markaana warka dibadda madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu kala hadlay in dalkiisa uu ka iibsado Mareykanka sawaariiqda difaaca ee Patriot inkastoo Turkigu iibsaday gantaalaha S-400 ee Ruushka waraysi uu siiyay wakaalada wararka Reuters ayaa Erdogan ku cadeeyay in heshiiskan halaasiga ah si isfahan ah ugala hadli doono Trump marka uu New York u tago ka qaybgalka shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay codsi baan hore ugu diray waxaanu ku yiri walow aan 100 sawaariiqda S-400 ah iibsanayno waxaanu idinkaga iibsan karnaa gadaalaha Patriot laakiin waxa kale aan u sheegay inaanu doonayn in shuruudaha aanu ku xirayno iibsiga gantaaladaasi ayna ka duwanaan shuruudaha aanu ku iibsanay S-400 markaas buu ugu jawaabay makaadaba anna waxaan ugu halceliyay dabcan way inaga go'an tahay ayuu yiri Erdogan wuxuuna intaasi ku daray oo yiri arrintan waxaan u sheegay golaha wasiirada marka heshiiska aynu galayno waa in qodobadaasi ay la mid ahaadaan kuwii aanu ku iibsanay S-400 oo ay ka mid yihiin in si wadajir ah loo sameeyo in amaah noola siiyo iyo in sidoo kale noola siiyo tasdiilaad haddii ay intaasi suurto gasho waxaanu iibsan doonaa sawaariiq badan oo Patriot ah markaas ayuu ugu yiri ma ka go'an tahay arrintaas waxaan ugu jawaabay ha dabcan waa iga dhab markii Turkigu uu sheegay inuu iibsanayo gantaalaha Ruushka uu sameeyo ayaa Mareykanku aad u dhaleeceeyay dalkaas oo ay ku wada jiraan gaashaanbuurta NATO waa tahay daawadayaal waa naga intaa war wixii dal iyo dibadda naga soo gaaray aad kala socoteen warbaahinta nuxurka wararkan war la mid intaan ku kulmi doonana sidaa iyo nabadgelyo